Inta badan waxaa la aaminsan yahay in la rumaysto wixii indhaha lagu arko oo keliya, balse waxaan idiin soo gudbin doonaa muuqaalo iyo sawirro ka dhigaya hadalkaas mid aan sax ahayn. Wax walba oo indhahaaga ay qabtaan ma ahan wax xaqiiq ah. Haddaba ku soo dhawaada tobanka indho-sarcaad kuwaas oo lagu qiyaani karo aragga iyo maskaxda. Koowaad, sawirka derbiga ee dhaqdhaqaaqaya. Sawirkan derbiga waxaa lagu soo bandhigay mid ka mid ah goobaha lagu soo bandhigo farshaxanada, waana sawir khiyaano wato oo indho-sarcaad ah ilaa heer aan la rumaysan karin. Inkastoo sawirka derbiga uu taagan yahay, hase yeeshee mar walba oo dhinac laga fiiriyo sawirka, waa mid isbedela una muuqda wax socda. Waana sidii adigoo ka eegaya daaqad ku taala bandhigga farshaxanka goob kale. Labaad, dhankee ayuu u socdaa sawirkan? Sawirkan suurtagal kuma ahan qaab walba ha noqotee inaad go'aamisid dhanka uu u socdo tareenka. Haddii aad ka fiirisid dhanka midig, tareenka wuxuu u socdaa dhanka midig. Haddii aad ka fiirisid dhanka bidix, tareenka waxa uu u socdaa dhanka bidix. Waxaan oo idinla waa indho-sarcaad aan la rumaysan karin, kana caajisayso isha inay aragto xaqiiqda. Saddexaad, sawirka Rubik Cube-ka. Marka la eego sawirkan, ma jirto wax la yaab leh oo muuqda oo aan ahayn kaliya Rubik Cube kaasi oo dul saaran warqad. Haddaba la soco, ma awoodaan inay indhahaaga kala saaraan in Rubik Cube-kan uu yahay mid sawir gacmeed ah, waana mid awooda in lagu qiyaano araggaaga. Waxaana sawirkan indho-sarcaadka ah uu ka mid yahay sawirrada ay isticmaalaan dadka bartay shuruucda waddooyinka ee qaar ka mid ah dowladaha dunida, ayadoona loo isticmaalo in lagu nidaamiyo habka isku socodka waddooyinka iyo in lagu qasbo darawallada inay yareeyaan xawaaraha aadka u sareeya oo ay ku kaxeeyaan gawaarida, ayadoona loogu dhigayo sidii inay caruur gudbayso waddada iyo wixii la mid ah. Afaraad, indho-sarcaadka sawirka socda. Waa sawir gacmeed taagan oo laga sameeyey xariiqmo dhaadheer oo isla siman, kuwaas oo sameynaya dhaqdhaqaaq, waxaana ay u muuqataa walxa dhaqdhaqaaqaya, ayadoona ah sawir taagan oo aan dhaqaaqin. Shanaad, kursiga rogan. Aragtida ugu horeysa ee kursigan waxay u muuqataa mid iska caadi ah. Kursigan dhab ahaantii waa mid loo sameeyey hab farshaxan oo indho-sarcaad wato, waxaana markii kor laga eego habka loogu fadhiisto kursiga uu sameynayaa aragti qalad ah oo indhahaaga iyo maskaxdaada kala saari karin. Lixaad, farshaxanka sawirka ah ee yes iyo no. Waa laba eray oo luqadda Ingiriishka ku qoran oo haddii aad ka eegtid dhan uu yahay yes, halka dhanka kale uu ka yahay no. Si guud, erayadan u qoran qaabka farshaxanka ah ayaa lagu tilmaamay dabeecadaha qalafsan ee dumarka qaarkood oo markii ay dhahayaan haa ula jeeda maya. Toddobaad, qolka indho-sarcaadka. Waa qol ay samaysay farshaxanada Braziliyaanka ah ee Regina Silver, kaasi oo ay ku samaysay gurigeeda dhexdiis. Waxaana qolkan farshaxanka ah ay u samaysay qaab indho-sarcaad wato oo aad u cajiib ah, taasi oo ay ku dhiirigelisay daneenta aadka u weyn oo ay u qabto handasada dhismaha iyo indho-sarcaadka. Sideedaad, indhaha ku kormeeraya. Waa daraagoon yar oo la sameeyey oo indho-sarcaad wato, taasi oo ah inay kula socdaan ama ku kormeerayaan indhaha bahalkan. Meel walba oo aad ka martidna, suurtagal kuma ahan inaad ka baxsatid fiirintooda ama eegidooda. Sagaalaad, joogga sare. Warqadan u muuqata sida Rubik Cube oo xaqiiq ah ayaa dhex socota hawada ayadoo aysan waxba caawinin. Dhab ahaantii waa mid sawir ah oo laga sameeyey farshaxan Rubik Cube ah oo ay warqad yar gadaal kaga dhagan tahay, taasi oo aan la dareemi karin indho-sarcaadkeed. Tobanaad, ahna kan ugu dambeeya, qolka EMS. Muuqaalka qolkan 100% waa mid sax ah, hase yeeshee waxaa loo sameeyey qaab khiyaano ku jirto ama indho-sarcaad wato. Waxaana sameeyey saynisyahankii Adalberto EMS Jr. sanadii 1934, asigoona dhisay qol xilli dambe loo bixiyey qolkii EMS. Qolkan markaad fiirisid dhinac gaar ah waxaa kuu muuqanaysa inuu leeyahay salxaalo caadi ah, derbiyadiis, dhulkiis iyo saqafkiisna ay sidoo kale isla siman yihiin, balse ogow waxaa ku dhex jirta khiyaano, taasi oo ah inuu qolku noqonayo mid derbigiisa iyo dhulkiisu ay u diisan yihiin dhinac, waxaana taasi ku muujinaya dadka taagan labada geesood ee qolkan, ayadoona ay u muuqdaan dadka taagan dhanka bidix
inay ka dheer yihiin ama ka waaweyn yihiin dadka taagan dhanka midig.